saddexda bisha sagaalaad 2020 saamilayda siyaasadeed ee reer Jubbaland oo ay ka mid yihiin ururada siyaasadeed odayaasha dhaqanka culumadiinka hogaamiyaasha ururada bulshada iyo wakiilada qurba joogta waxay walaac xoogan ka muujinayaan arrimaha siyaasadda xaaladda amniga iyo dhaqan dhaqaale ee xilligan xasaasiga ah ee ka taagan Jubbaland taasoo u baahan in la helo tallaabooyin maangal ah oo u adeegi kara danaha iyo mustaqbalka guud ee dalka gaar ahaan Jubbaland iyo midka shacabweynaha Soomaaliyeed intaba ugu horeyn maadaama hal sano ka hor uu dhamaaday waqti xilhayntii hoggaanka iyo baarlamaanka Jubbaland isla markaasina aan wali la xalin mashaakilkii ka dhashay hanaankii doorasho beeneedka ahayd ee Axmed Madoobe taasoo si ballaaran xadgudub ugu ahayd dhaqan siyaasadeedka dalka dib u heshiisiinta bulsho dhismaha dawladnimo qaanuunka dalka iyo xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka iyo oo ay mudnaayeen xuquuqda muwaadiniinta ay mudnaayeen si ay u doortaan wakiiladooda iyo hogaamiyaashooda siyaasadda maadaama Jubbaland ay ahayd welina ay tahay xudunta bu'da khilaafka soo jiitamay ee dhinacyada qabiilka mid afkaar diineed iyo mid tartan awoodeed ku qotoma intaba taasuna ay keentay kala fogaansho iyo colaad gaamurtay ee ka dhex jirta bulshada ku dhaqan Jubbaland maadaama Axmed Madoobe uu bilowgii kursiga ku yimid qaab aan xor ahayn oo aan xalaal ku salaysnayn oo horseeday khilaaf iyo colaad dhiig ku daatay iyadoo heshiiskii ay Itoobiya garwadeenka ka ahayd ee lagu saxiixay magaalada Addis Ababa uu dhigayay in la helo dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed dib u habayn amni awood wadaag sax ah adeeg bulsho iyo horumar loo siman yahay kuwaasoo dhammaantood si ula kac ah uu u baalmaray uguna tuntay Axmed Madoobe iyo maamulkiisa maadaama 8 sano ee Axmed Madoobe hoggaanka hayay iyo waliba ka badan ay ku dhamaatay fashil iyo ceeb isla markaana halkii uu wax ka qaban lahaa khilaafka bulsho iyo cadaalad xumada waqtiga dheer soo jiray uu si ula kac ah u sii huriyay colaad siina kala qaybiyay bulshada dhexdeeda sida darteedna maamulkiisu dhaafi waayay magaalada Kismaayo oo 5 kiiloomitir aan ka badnayn iyo meelo aan ka sii fogeyn lagu guul daraysay in gacanta al-shabaab laga xoreeyo gobolka Jubbada Dhexe iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubbada Hoose iyo Jubbaland dhamaantood maadaama hoggaanka Puntland ay si damiir la'aan ah oo mas'uuliyad darro ah Axmed Madoobe ugu taageerayaan danahooda siyaasadeed iyagoo iska indhatiraya qaabkii guracnaa ee Axmed Madoobe awoodda ku boobay isla markaana u dafiray xuquuqdii muwaadiniinta Soomaaliyeed sida ku cad qodobka 46 faqradiisa labaad ee dastuurka dalka kaasoo awood u siinaya shacabka inay hoggaankooda u doortaan hab ku dhisan daahfurnaan oo la wada aamini karo waa doorasho xor iyo xalaal ah maadaama madaxweynaha dawladda federaalka uu si aan sharciga iyo danta qaran waafaqsanayn u aqoonsaday Axmed Madoobe inuu yahay madaxweyne ku meel gaar ah taasoo dhiiri gelinaysa ku tumashada dastuurka maamul goboleedka Jubbaland lagu aasaasay oo cadaalad rasal dhigiisu u yahay iyo midka federaalka ah iyo dhammaan xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee reer Jubbaland isla markaana go'aanka dadweynaha uu baalmarsan yahay waa go'aankii madaxweynaha ee tilmaamaha ku cad qodobka 12aad faqradiisa labaad ee dastuurka qaranka wuxuu si cad u qeexayaa in dawladda mas'uuliyad ka saaran tahay hubinta iyo ilaalinta xuquuqda dadkeeda iyo dalkeedaba maadaama siyaasiyiinta dawladda hogaaminaya ee heer federaal iyo maamul goboleed ay ku wada mashquulsan yihiin danahooda siyaasadeed iyo sidii ay kuraastooda u haysan lahaayeen
isla markaana ayna jirin cid kale oo ilaalinaysa xuquuqda iyo xallinta dhibaatooyinka amni siyaasadeed ee dhaqandhaqaale ee ay wajahayaan shacabka reer jubbaland haddii ayay kuraastoodii doonteen xuquuqda dadka yaa u maqan weeye qodobkaas maadaama beesha caalamku ay axmed madoobe ku taageerayaan sidii uu u joogtayn lahaa dhibaatooyinka uu ku hayo dadka reer jubbaland iyo sidii uu xukunka ugu sii haysan lahaa hab jujuub ah iyo marooqsi ku dhisan kana soo horjeedo sida uu qeexayo qodobka kontonaad faqradiisa a ee dastuurka dalka kaasoo tilmaamaya in heerarka kala duwan ee maamulka dawladdu uu keliya ku jiri karo kalsoonida iyo taageerada dadka uu xukumo haddaysan dadku ku soo dooranin awood lagu magacaabay ma jiri karta weeye qodobkaa macnaheedu maadaama dhammaan saamiilayda siyaasadeed iyo hoggaamiyeyaasha kala duwan ee jubbaland ay la gudboon tahay inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka bulshada iyagoo ka dhowrsanaya xuquuqda dastuuriga ah iyo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha ee muwaadiniinta reer jubbaland dhammaan saamiilaydaasi waa inay u istaagaan raadinta xuquuqda shacabka reer jubbaland ee maqan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka sare ku xusan een hadda ka soo hadalnay saamiilayda siyaasadeed odayaasha dhaqanka culama udiinka wakiilada qurba joogta haweenka dhallinyarada iyo ururada bulshada rayidka ah waxay isla go'aansadeen kuna baaqayaan qodobadan soo socda kow waxaan la socodsiinaynaa dhammaan madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedyada iyo dhammaan beesha caalamka in axmed madoobe uusan matelin dadka iyo deegaanka reer jubbaland maadaama aanu ku imaanin kuna joogin rabitaanka iyo doorashadooda rabitaanka bulshada reer jubbaland iyo doorashadooda sidaa awgeed in ka qayb ahaanshaha axmed madoobe ee talada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka ay gaf iyo xadgudub ku tahay xuquuqda aasaasiga ah ee reer jubbaland labo shirkan aan maanta u fadhinno wuxuu go'aansaday in dhammaan la taageero si buuxda ay reer jubbaland uga qayb qaataan shirweynaha aan qabanqaabadiisa wadno hadda oo lagu qabanayo magaalada garbaharey ee gobolka gado ee caasimadda u ahna caasimadda labaad ee jubbaland saddex in shirweynaha garbaharey lagu xalliyo wixii khilaaf ah iyo tabashooyin ah ee jira loogana wada tashado sidii loogu dhisan lahaa jubbaland loo dhan yahay oo la wada leeyahay oo aan shisheeyo u adeegin balse lafdhabar u noqota nabadda horumarka iyo dawlad wanaag afar shirku wuxuu taageeray go'aanadii dhexalgalka ahaa ee ka soo baxay shirkii maamulada degmooyinka gobolka gado ee dhiirigelinayay aayakatashiga bulshada reer jubbaland iyo baadidoonka jubbaland loo dhan yahay waa mahadsantihiin